hungurigu waa tubo muruqa oo cuntada iyo cabitaanka ka qaada afkaaga geysana caloosha. Ma ogaan kartid hungurigaaga ilaa aad liqdo wax aad u weyn, aad u kulul ama aad u qabow. Waxaa laga yaabaa inaad xanuun dareento ama aad wax dhibaato kala kulantid wax laqista. Dhibaatada ugu badan ee hungurigu waa cudurka caloosha ku dhaca ee loo yaqaan gastroesophageal reflux, marka la soo gaabiyana loo yaqaan GERD. Waxaa la horseedi kartaa inaad dareento dareen gubasho leh oo loo yaqaan laabjeex. muruq garaansan ayaa hunguriga caloosha ku xira, waxaana loo yaqaan muruqa hunguriga. waxa uu furmaa marka aad wax laqdo, waxaana uu kontaroolaa furitaanka inta u dhaxaysa hunguriga iyo caloosha. marka uu muruqa ku guul dareysto inuu xirmo, tani waxay u ogolaanaysaa waxyaabaha caloosha ku jira inay dib ugu soo laabtaan hunguriga. taasina waxay kugu adkeyn doontaa wax laqista. calaamadihiisa waxaa ugu caansan dareen gubasho oo aad ka dareento laabta, laabjeex badanaa cuntada kadib, taasoo ka sii dari karta habeenkii. laab xanuun daran, dhibaato la xiriirta wax laqista. daaweyntu waxay ku xiran tahay dhibaatada jirta. dhibaatooyinka qaar waxaa looga ladnaadaa daawooyinka la iska iibsado ama isbeddelka cuntada. kuwo kale waxay u baahnaan karaan daawooyinka dhakhtarku uu qoro ama qalliin. mararka qaar waxaa la isweydiin karaa maxay u dhacdaa cilladani. balse arrimaha ugu muhiimsan waa kuwa soo socda. qaabka jirkaaga marka aad wax cunto kadib. habka quman ee aad u fadhiisato ayaa ka hortegi kara xanuunka. xajmiga cuntada aad qaadato. cunto qaadasho yar ayaa sahli karta inaadan dareemin xanuunkan. noocyo ka mid cuntooyinka aad qaadato iyo maadooyin ku jira cabitaanada qaar ayaa horseedi kara cilladan ama daciifin kara muruqa isku xira caloosha iyo tubada hunguriga, taasoo keeni karta laabjeexa. talooyin dheeraada waxaad weydiisan kartaa dhakhtarkaaga, howlwadaankaaga caafimaad ama bixiyaasha daryeelka caafimaadka deegaankaaga.